waad salaamantihiin dhammaan asxaab sharafta leh ku xiran channelkayga soo dhawaada meel walba aad joogtaan. Insha Allah maanta muuqaalka aan rabo inaan idin wadaago waxa uu ku saabsan yahay haddii ay ku haysato cilad ah markaad isticmaalaysid moobilka inuu moobilkaaga noqdo mid culays ah. Haddaba sidee aad ugu saari kartaa culayskaas aadna ugu dhigi kartaa mid fudud markaad isticmaalaysid moobilka. Muuqaalkaas ayaan jeclaysaday inaan idin soo gudbiyo maanta ee daawasho wacan. Ugu horreyn waxaad tagaysaa settingka moobilkaaga, kadibna hoos ayaad u soconaysaa. Halkan aniga hadda developer option banaanka ayay ii taalaa. Adiga marka sidee ayaad banaanka soo saaran kartaa? Waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay about phone, kadib waxaad kasii dooranaysaa software information. Halkan ay ku qoran tahay build number aad taabanaysaa ilaa 3 mar 4 mar ayaad riixaysaa. Aniga hadda wuxuu leeyahay no need developer mode has already, yani mar hore ma baahnid, mar hore ayaad gashatay. Marka waxaan imaanayaa developer option, hoos ayaan daadagayaa. Waxaan u baahanahay meel ay ku qoran tahay don't keep activities. Meeshaas ayaan on leeyahay, off ayay iga tahay. Qaybta kale ee ka hooseysa ay ku qoran tahay background process limit ayaan ku dhufanayaa. Waxaan ka dooranayaa meesha ay ku qoran tahay no background processes. Qaybtaas ayaan tick saarayaa. Hadda moobilka waa uu isbedelayaa sidii hore, si ka fiican ayuu ii noqonayaa. Dhanka culayska ii haystana waa ay ka qaadmaysaa. Farsamadan waxaa hor u shaaciyay shirkadda Samsung. Haddaba waxaan filayaa inaad muuqaalkan aad ka bogotay. Fadlan muuqaalka like saar, hana ilaabin inaad muuqaalka aad u share gareyso asxaabtaada kale si ayagana ugu faa'iidaystaan. Intaan muuqaalkiisa kale ee xiga aan wada kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo.